fadlan waxaan dambal u direynaa haddaan nahay ciidanka booliiska gobolka Gedo anoo ku hadlay magaca ciidanka booliiska taliyahanaga cusub General Saacid oo ahaa booliis original ah inkastoo waayihii dambe booliisku ay ka soo galayeen daaqado qaarkood asagoo ma aan koobi hadda ka hor maamulka gobolka Gedo taliyuhu waxaan isku aragnay magaalada Muqdisho waxaan ka wada hadalnay waxqabadka saldhigga booliiska ee degmadan iyo qaybta oo isku dhaxdisan saldhigyada degmooyinka gobolka Gedo 8 bishii 2013 ilaahay ma qadarin dawladda isqabsigeedii buu warasna qadka uga baxay hadda buu soo noqday alxamdulillah annagu waxaan nahay ciidanka booliiska wax muxuu ahaa aan ka helno dawladda dhexe ee Soomaaliya taliyaashii soo maray mid gobolkan yimid ma jirin annagu haddaan nahay ciidanka booliiska xuquuq iyo xaq aan ku leenahay taliska ciidanka booliiska ah ma jiraan waxaan hadda anagu gundada la qaadanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed talisada ciidamada waa isu gurmud baan ka helnay difaaciina aan ku wada jirnaa waxaan rabnaa taliye Saacid anagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed baana ka mid nahay waa inaan helnaa xuquuqdii iyo xaqi aan leenahay waa inaan helnaa muxuu ahaa imaasho dhow oo noogu timaado tirokoob ciidan iyo saldhigyadooda la dayactiro wixii hawl booliisku lahaan jiray anagu ma lihin ama Soomaaliya kamid ma yihiin oo booliis Soomaaliyeed ma yihiin in la yiraahdo iyo in la yiraahdo booliiska Soomaaliya ka jiraad ka mid yihiin labaasna loo kala cadeeyana waan rabnaa waa isku tashan karnaa bilaadan jiraan nahay haddaba anagu baad is ilaalino ilaahayna waan ilaaliyaa dadka anaga kala ceshano laakiin aqabkii ciidan booliisnimo waa inaanu helnaa maadaama tahay nin booliis ah soo jireen ahaa booliis takhasuskiisa iyo aqoonteeda leh firfircoon u leh muxuu ahaa khibrad aad u weyn waan ku sugaynaa taliye والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.